dal waliba waxa uu leeyahay mas'uuliyiin waajib ka saaran ka hortagga dhibaato walba oo ku soo socota shacabkooda. Innagu waxaynu nahay Soomaali, waxaanu leenahay dawlad leh ciidan, taas oo caalamka laga aqoonsan yahay. Hase ahaatee, awood uma lihin in aan ka hortagno dhibaatooyinka. Baarlamaanka Soomaaliya ayagoo ajandaha kulankoodu ahaa ka doodista amniga ayaa shacabka Muqdisho masiibooyin cusub gelgelay. Madaxdeennu waxa ay saxaafaddu isugu yeeraan dhacdada kadib ayagoo doonaya in ay la wadaagaan tacsi qofka markaasi dhibaatada la kulmay, waxayna markaasi iska raadiyaan dareen murugo. Warbixintan ma aha mid aan mas'uul sharaftiisa ku dhaawacayo, balse waa mid aan ku dhiirigelinayo madaxdeena. Qof waliba ayaa dareemi kara xanuunkii toddobaadkii la soo dhaafay qalbigeena dhex degay iyadoo dhacdooyin cusub ay ka dhaceen Muqdisho. Mana jirto ilaa iyo hadda mas'uul ka hadlay falalka amni darro ee xamar ka dhacaya marka laga soo tago mas'uuliyiin ka dhiidhinaysa dhibaatada ku dhacaysa jufadooda.